السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان هذا سو هذا waxaan hor u soo qaadanay aragtida Pythagoras 10 koowaad noo socday waxaan guda gali doonaa tusaalooyinkii tusaalaha koowaad walahay raadi dhinac maqan adiga oo adeegsanaya aragtida Pythagoras ku celiyo raadi dhinac maqan adiga oo adeegsanaya aragtida Pythagoras ba waxa lagu siiyay saddex xagal quman dhinaca A 12 cm dhinaca B 5 cm hadaba C lagu weydiiyay raadi dhinaca maqan C halka ku qoran tahay ama A lagu weydiiyay ba iyaduna saddex xagal quman lagu siiyay waxa lagu siiyay A iyo B C ka maqan ama H inta yaana hadda waxa ku qoran H raadinayna qiimaha H araadana waa shakalka waa lawjibaarka shakalka sidoo kale ja waxaana la siiyay saddex xagal quman waxaana la siiyay C iyo B waxa naga maqan waxay yihiin A hadaba sabuurada aan wada aadno ila socdan insha Allah la socda tusaalaha koowaad aan soo qaadi doonaa tusaalaha koowaad qaybtiisa ba casharka markaan bilaabeynay waxaan idin baray qaabka loo sawiro saddex xagal quman hadaba waxaan sawiranaynaa saddex xagal quman aan sawiranaynaa insha Allah saddex xagal quman aan sawiranaynaa saddex xagal quman aan sawiranaynaa saddex xagal quman aan sawiranaynaa saddex xagal quman waa sawir leh saddex dhinac isla markaana leh xagal 90 degree waxaan sawirnay saddex xagal quman waxaana la siiyay dhinaca A iyo B daba aan ku qorno dhinaca A waxaana la siiyay 12 cm 12 cm kaloo nasi dhinaca B kaloo nasi dhinaca B oo 5 cm waxaana la siiyay 5 cm waxaana la weydiiyay C waxaa dhahnay C laba jibaarka shakalka saddex xagal quman oo loo yaqaan dhinacan C waxaa lagu helaa dhahnay wadarta laba jibaarada dhinacyada kale hadaba waxaa leenahay marka C soo qaadna soo guuri laba jibaarka shakalka C square laba ku jibaaran waxaa lagu helaa laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran
haddaba waxaa sameynayna kaliya by substitution waan ku bedelanayna insha Allah halkan waxaa loo yaqaana dhaane marka soo sharaxaynay a kan waxaa loo yaqaana b halkan c haddaba booska a waxaan ku bedelanaynaa 12 centimeter 12 centimeter ila soco gaariga ha ka dhicin 12 centimeter saaran square saarena square plus lagu daray p na waxaana la siiyey 5 centimeter idan waxaa noo saaran square taas waxay u taagan yihiin square plus b square a laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran kaasay u taagan yihiin tana a laba ku jibaaran ama laba jibaarka shakalka waxaa lagu hela dhaanay a laba ku jibaaran oo lagu daray ba laba ku jibaaran waxaa leenahay 12 laba ku jibaaran jibaarka sare wuxuu ku muujinayaa inta jeer tirada base-ka ah la isku dhufanayo waxaa leenahay 12 laba jeer isku dhufo 12 laba jeer isku dhufo waa 144 centimeter laba jeer isku dhuf waxaa dhahayna centimeter square balaaska sidiisa usoo qaado 5 laba jeer isku dhuf waxaa dhahayna 25 5 ku dhuf 25 jibaarka kore markasta wuxuu ku muujinayaa inta jeer tirada base-ka la isku dhufanayo haddaba ha ilaabin inta jeer tirada base-ka la isku dhufanayo 5 ku dhuf 25 centimeter square gare centimeter lagu dhufto centimeter waa centimeter square centimeter oo laba ku jibaaran ila soo ardaydeeda waxaa leenahay marka 4 lagu daray 5 4 ku daraa leenahay 9 ونسكا اسكو درينا احد يا احد اسكو درينا 4 plus 2 afar laba ku dara leenahay iyaduna waa 6 halkaana soo qaado waxa sameeynay waniska asku darnay koowaad iyo koowaad tobnaad iyo tobnaad boqolaad iyo boqolaad saas sameeynay centimeter square na halka soo qaado centimeter square xaleenahay waxaan raadinayna waa laba jibaarka shakalka waxaa noo saaran square root haddaba halkaan waxaa gelinaynaa calaamadii square root ka ahayd intana waxaa gelinaynaa calaamadii square root ka ahayd halkaan waxaa gelinaynaa calaamadii square root ka ahayd xaleenahay therefore sidaa darteed waxaa lagu helaa waxay la mid tahay square root 169 xijibaarka waxay ugu baxdaa 13 laba jeer isku dhufo waa 169 centimeter square na xijibaarka waxay ugu baxdaa centimeter square-ka iyo calaamadda isla tuur sida isku tuure qaabkaas u sameynay tusaalaha koowaad qaybtiisa qaybtiisa ba aan lehe aan dhahnay saddex gal kumana sawiranay qaybta saddex galka uu dheer uu wax loo yaqaanaa c tan a qaybtana b a waa lagu sii 12 centimeter b na waa lagu sii 5 centimeter haddaba waxaa lagu weydiiyey shakalka daba jibaarka shakalka haddaba lagu weydiiyey calaamad su-aal ka saaran hadheena
laba jibaar shakalka waxaa lagu helaa a laba ku jibaar a oo dhinacan ah oo laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran aada waxa lagu siiyaa ku bedelanay waxa lagu siiyaa 12 sentimitir waa soo qaadanay 12 sentimitir aada xanoo saaran square saarayna plus ka soo qaadanay b waxa lagu siiyaa 5 sentimitir waa soo qaadanay square kan waa saaray 12 sentimitir square ah ku qoran halkan square kan 2 waaye labadan waxay ku sheegay inta jeer ee tirada hoose aad isku dhufanayso 12 laba jeer isku dhufo 144 sentimitir laba jeer isku dhufo sentimitir times sentimitir square 5 sentimitir iyaduna 5 laba jeer isku dhufo waayo square ka 25 sentimitir laba jeer isku dhufo sentimitir square 144 lagu dar 25 169 waa square root ka saaray yani xidid jibaar waxa ka saaray 169 xidid jibaarka wixii ugu baxdaa 13 ugu baxdaa sentimitir square-na xidid jibaarka wixii ugu baxdaa tuudan kan half oo qarsan maadaama uu half uu qarsan yahay in square root alla ma muujiyo ba waxaan ku jirnaa tusaalaha koowaad qaybtiisa ba had sharaxanay qaybta ta hadaba ila soco qaybtiisa ta waan sawiranaynaa ugu horeyntii waxaan sawiranaynaa saddex xagal quman aan sawiranaynaa saddex xagal quman sawiranaynaa qaabku uu sawiran yahay oo kale ayaan sawiri doonaa waliba qaabku sawiran yahay kale ayaan sawiri doonaa qaabku sawiran yahay kale ayaan sawiri doonaa qaabku sawiran yahay kale ayaan sawiri doonaa ila soco oo calaamada sawiranay ila samaysato soo qaadanay alla marka saddex xagal quman halkaas loo sawiraa sidoo kale qalanka soo qaado halkan xagashi halkan xaluusi 6 sentimitir 6 sentimitir 6 sentimitir kan xaluusi 6 halkan xaluusi 6 sentimitir halkaana 8 sentimitir 8 sentimitir 8 sentimitir daba waxaa lagu wejiyey h soo raadiya lagu kor waxaa ku qoran raadi dhinaca maqan adiga oo adeegsanaya Pythagoras aragtidii Pythagoras adiga oo adeegsanaya raadi dhinaca maqan waa kee waa dhinaca saddex xagal quman waa dhinaca ugu dheer xalena marka h aa lagu weydiiyey xalena h laba ku jibaaran soo qaadanay booska h loo qoro kara c aa dhihi karta x aa dhihi karta ya aa dhihi karta halkan xaala dhinacyada inaa kala taqaano markasta waa muhiim shirka hore kusoo qaadanay dhinacan xaala b dhinacan xaala c ama h waxaa rabto dheh xalena marka c laba ku jibaaran waxaa lagu helaa dhinaca saddex xagalka ugu dheer marka raadinayso waxaa lagu helaa ada oo laba ku jibaaran dhinaca ugu dheer dhinaca kasoo horjeeda loo yaqaan laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran xalena h laba ku jibaaran soo qaada soo guuri h laba ku jibaaran laba ku jibaaran waxay kula mid tahay waxaan haysanaa 8 sentimitir waa ku bedelana 8 sentimitir soo qaad waxaa leenahay 8 sentimitir 8 sentimitir waxaa noo saaran square
saarayna square centimeter square plus b square aan qoran b waxaan haysanaa 6 centimeter hadda waa ku bedelanaa 6 centimeter 6 centimeter 6 centimeter bida waxaan oo saaran square tan waxaan saaraynaa square laba jibaar sidaas ay lamid tahay h laba ku jibaaran waxaan raadinaynaa waxaa waaye h laba ku jibaar waxaan raadinaynaa si loo soo helo waxaa leenahay 8 laba jeer isku dhuf waxaa dheenaa 8 times 8 waa 64 4 centimeter laba jeer isku dhufo centimeter square plus waxaa leenahay lagu daray 6 laba jeer isku dhuf waxaa dheenaa 36 centimeter laba jeer isku dhuf waxaa dheenaa centimeter square centimeter square waxaa leenahay 4 plus 6 waa 10 waniska koowaadka isku dar 10 waa 10 waxaa qoranaa eber 0 waxaa wadana hal markaa wata 6 ku dar 7 7 ku dar 10 waxaa noqonaya marka 100 boqol waaye centimeter square na halka qaado maadaama ay tahay addition maadaama ay tahay ku dar halka qaado centimeter square halka qaado si h kaligeed loo helo labada meel waxaa gelinaa square root xidijibaar kan waxaa gelinaa xidijibaar kan waxaa gelinaa xidijibaar sidoo kale xidijibaarkan labadan iyo xidijibaarkan isla tuur inta waxaa ku haraya h darteed h waxay kula mid tahay saa darteed labadan dhinac waxaa laga wadaa saa darteed square root 100 boqol xidijibaarka wuxuu ugu baxaa 10 centimeter square na xidijibaarka waxay ugu baxdaa centimeter labada centimeterka dul saaran iyo calaamada xidijibaarka laba u qarsan way soo tagayaan jawaabteena waa 10 centimeter tusaalaha koobaad halkaas ayaan ku sameynaa waayo wuxuu koobnaa ba ta iyo ja haddaba ja adiga ku dhaafaya insha Allah soo xalay ja adiga ku dhaafaya soo xalay waxaan dhahnay marka koobaad waxa muhiim ah inaad kala fahmi karto dhinacyada saddexagalka dhinacaan meesha qalin ku hayo waa halkaas hoose waxaa loo yaqaanaa b saddexagalka meesha ugu dheerna waxaa loo yaqaanaa c si kale haddii aa u dhaho halkan waxaa loo yaqaanaa hypotenuse englishka hypotenuse halkan opposite ama perpendicular kana base ama adjacent saddexagalka dhinaca ugu dheer haddii lagu weydiiyo marka saddexagal quman marka lagu weydiiyo dhinaca ugu dheer waxaa dhehe h laba ku jibaaran dhinaca haddii lagu weydiiyo yani shakalka laba jibaarka shakalka loo yaqaana waxaa lagu helaa dhinacan oo laba ku jibaaran oo lagu daray halkan oo laba ku jibaaran intaas wixii ka dambeeya waxaa sameynaya keliya waa ku bedelash haddaba halkaas waxaan ugu baxaynaa tusaalaha koobaad tusaalaha labaad haddaba aan gudagalno sabuuradda aan iska masaxno sabuuradda aan iska masaxno tusaalaha labaad ee la socda ardaydeeda tusaalaha labaad waa mas'alooyin aan leeyahay dhirarka dhinacyada yaryar ee saddexagal quman haddii ay la eg yihiin 14 mitir
iyo 10 iyo 48 mitir haddaba raadi dhirarka shakaalka haddaba dhirarka shakaalka lagu weydiiyey oo laga wado a ama c oo laba ku jibaaro c haddaba raadi su'aasha kale dhirarka shakaalka ee saddexagal quman haddii uu leeyahay 25 sentimitir dhirarka hal dhinac oo yar uu leeyahay 15 sentimitir haddaba raadi dhirarka dhinacyada soo haray haddaba raadi dhinaca dhirarka soo haray dab sabuurada aan wada tagno sabuuradan xalinaynaa ugu horeen hadalka noo qoran waxaan u bedelaynaa sawir ila socda waxaan u bedelaynaa sawir salaha labaad mas'alooyin waxaan u bedelaynaa sawir inta inoo qoran waxaan u bedelaynaa sawir saddexgal kumana sawirane marka hore saddexgal kuma markaa sawiratid saddexgal kuman waan sawirane hadalkii waxaan u bedelaynaa sawir ku celiyo dhirarka dhinacyada yaryar waxaa la jeedaa a iyo b aa lagu siiyey dhirarka shakaalka lagu weydiiyey dhinacyada yaryar a waxaa lagu siiyey 14 mitir bina waxaa lagu siiyey 48 mitir haddaba waxaa lagu weydiiyey dhirarka shakaalka oo lasoo gaabsho c xalanaa marka aragtidii Pythagoras isticmaalaynaa leenahay a laba ku jibaaran waxaa lagu helaa a laba ku jibaaran isla qaacidadii haddoo kale isticmaalaynaa qaacidadan waxaa ka fidinaya kor lagu daray ba laba ku jibaaran leenahay a laba waxaa raadinayna waaye a laba ku jibaaramaan waxaa raadinayna waaye a laba ku jibaar si loo helo a meesha qoran tahay numberkaana lagu bedelaa 14 mitir 14 mitir noo soo qaad 14 mitir eeda waxaa saaran square waa square garaynaynaa laba jibaar balaas b booskeeda waxaa ku bedelaynaa 48 mitir waxaa saaran iyaduna square waxaa leenahay dhirarka shakaalka oo loo yaqaano a waxaa lagu helaa a laba ku jibaaran 14 laba jeer isku dhufo waa 196 mitir laba jeer isku dhufana mitir square plus
48 laba jeer isku dhufo waa 2300 iyo 4 mitirka laba jeer isku dhufo isna wuxuu noqonayaa mitir square halkaas oo ku celiyo laba jibaarka shakaalka laba jibaaran waxa lagu helaa dhaanay a laba ku jibaaran lagu daro ba laba ku jibaaran a meesha ay qoran tahay e waxa ku bedelnay 4 iyo 10 waayo dhinacana waxa loo yaqaanaa e waxa ku bedelnay 4 iyo 10 square kan wuxuu ku sheegayaa inta jeer tirada hoose tirada base-ka aad isku dhufanayso 4 iyo 10 laba jeer isku dhufo 196 mitirkan laba jeer isku dhufo mitir square mitir laba ku jibaaran 48 laba jeer isku dhufo 2300 iyo 4 mitir laba jeer isku dhufo mitir square hadaba laba jibaarka shakaalka wuxuu la mid yahay xalanahay 196 lagu daray 2300 iyo 4 waxay la mid tahay 2500 mitir square na halka soo qaado mitir square halkan fiiri 60 iyo 40 isku dar 10 eber qor hala wadata halka wad 9 ku dar 10 eber ku dar waa 10 eber qor hala wadata halka ku dar 2 3 ku dar 5 labadan soo deji si kaligeed loo helo kaligeed waxa leenahay labada meel square root ka saar labada meel xijibaar gil labada meel lana xijibaarka ee labadan isla tuur daganta waxa ku haray a waxay la mid tahay 2500 square root marka ka saarto waxay ugu baxay 50 mitir square kan iyo calaamadan isla tuur halkaan waxa ku haray mitir su'aashana la weydiiyay marka raadi dhirirka shakaalka hadaba waa soo helnay dhirirka shakaalka waa 50 soo helnay 50 mitir soo helnay dhirirka shakaalka waa soo helnay hadaba waxay noo ahayd ba midaan kale iyaduna waa ku dareena ila socda ba ta tusaalaha labaad qaybtiisa ta sidoo kale hadalka noo qoran waxaan u bedeleynaa sawir xalanahay waxaan noo qoran dhirirka shakaalka ee saddexagal quman haddii uu leeg yahay 25 sentimitir dhirirka hal dhinac oo yar uu leeg yahay 15 sentimitir hadaba raadi dhirirka dhinaca soo haray waxa marka hor sawiranaynaa saddexagal quman marka hor sawiranaynaa saddexagal quman sawiranaynaa marka hore saddexagal quman sawiranaynaa saddexagal quman qaabka loo sawira xisada ka horeysa ku soo qaadanay in la fahmayo waa filayaa markaas loo sawirayaa dhirirka shakaalka saddexagal quman haddii uu leeg yahay dhirirka shakaalka lagu siiyay markaan 25 sentimitir 25 sentimitir dhinaca saddexagal quman ugu dheer lagu siiyay taas oo faham shakaalka dhinacaas lahaa sentimitir dhirirka hal dhinac oo yar haddii uu la mid yahay 15 hal dhinacna waa lagu siiyay
labadan dhinac hal dhinac kamid ah lagu siiyey dhinaca arta u qaadanay 15 centimeter aa la siiyey 15 centimeter raadi dhererka dhinaca soo haray waxaana soo haray dhinaca loo yaqaano p hadaba waxaan leenahay marka qaacidada soo qaadanayna Pythagoras a square plus b square la mid tahay c square hadaba waxaan la weydiiyay markaan b marka b na la weydiiyo b da ko ka bilaabay b soo qaado b square waxay la mid tahay dhinaca isdhexgalka ugu dheer shakaalka soo qaado oo loo yaqaano c a laba ku jibaaran ka jara isticmaalaya markaan laga jaray dhinaca ugu dheer iyo dhinaca ugu yar waa kala jaray a laba ku jibaaran soo qaado p square ranin power p square maahan marka u dambeys xaq saar doona square root c waa nala c dhinaca shaqaalka ugu dheer waa 25 centimeter c xala socdo square ala socdo square plus ugu dare eena waa nala c 15 centimeter square عفوا halkan aan iska tirtirno tirtirno 15 centimeter square 25 laba jeer isku dhufo square kan tiradan labada dul saaran wixii ku sheedana inta jeer tirada hoose aad isku dhufanayso waxa dhahay 25 lagu dhifto 25 laba jeer isku dhufo 25 lagu dhufto 25 600 meterka laba centimeterka laba jeer isku dhufo asna waxa dhahayna centimeter square centimeter yani lagu dhufto waa centimeter square plus soo qaadata 15 laba jeer isku dhufo 15 lagu dhufto 15 waa 225 centimeter laba jeer isku dhufo dhahayna iyaduna centimeter square sidoo kale waxa dhahayna markaan isticmaalayna addition not addition waxa isticmaalayna subtraction على دينا ugu dheer dina ugu yar istaagal kuman way kala jarmayaan isticmaalana subtraction afwan addition halkaas qaacidada inoo qoran tahay saxada ku hay markaste ba laba ku jibaaran waxa lagu helaa 625 laga jaray 225 soo baxayo 400 centimeter square na halka soo qaado centimeter square labada meel waxa galnay square root xijibaar waxa galnay xijibaar waayo waxa rabna waxa waaye ba kaligeed waa hada ba square waa yani waxaan haysan فكان الجبار كان يتودان إسلا صار
sidaa darteed ba waxay la mid tahay 400 square root waxay ugu baxdaa 20 centimeter square na aljibaarka waxay ugu baxdaa centimeter square haddaba dhinaca nala weydiiyey waa soo helna raadi dhererka dhinaca soo haray waa p waxaan soo helnay 20 centimeter soo helna example 2 halkaasoo ku sameeyaa a iyo b hadda waxaa samaysaa casharkaas ku celcesho ilaa aad ka fahanto waxaa inoo haray layligaasna waa 2 qayb qaybta koobaad raadi dhererka shakaalka saddex adal kuman dhinaca ugu dheer bisa lagu weydiiyey waa su-aasha koobaade fa ta ja xa qa da ay kooban tahay su-aasha labaad waxa aad raadisaa dhinaca maqan sawiraantaasna dhinaca maqan kaliya lagu weydiiyey يعني مر A مقن مر B مقن مرنا C مقن كان كور لكن كلي وحنا مقن C أما دينا سد حاجة الكودر أن سد حاجة الكمان دينا كودر مقن وحنا استعماله كلي أرتدى بايثاغورس قاعدة استعماله صوبرة إكسامبل كوسو فهمتي وحكاوت كلابات ومسألوين مسألة الكوبات لابد دينا سد حاجة الكمان حدي أيهين 6 سنتيمتر iyo 8 سنتيمتر waxa aad raadisaa dhererka shakaalka lagu weydiiyo oo si lagu weydiiyo hadaba qaacidadii waa isticmaal su'aasha afaraad dhinacyada yar ee saddexaga alquman hadii ay leeyihiin dhererkoodu 2.4 cm iyo 3.2 cm hadaba raadi dhererka shakaalka waxaan filayaa inaad fahanteen aadna kasoo jawaabi doontaan insha Allah xisad xigta channelka wehel ka dhigo Ramadan Academy online waa channel ay leeyihiin ardayda Soomaaliyeed sida halkaas ay ku siman tahay Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh channelka subscribe share like and comment intaba Assalaamu alaykum